السلام عليكم أصحاب qiimaha qeybaha badan ku soo dhawaada qalab furan gacan furan ilaa furan oo saaxiibkiin saaran la fiidan dhammaan kasta joogtaan nabad ku noolaada barnaamijkan haddii aan ku bilaawno filimkan aad burush ee oo barfas aktarka ka yahay waliba ninka lagu magacaabo Seef Alqaana Kabalaadirka oo ka yahay ayaa maalmaha la burburinaya waliba kaasoo lagu xayeysiinaya diinta Hinduuga waliba kor loo qaadayo Hindu ahaan aad ay ugu faraxsan yihiin filimkani dhalinyarada iyo salmiyada ay ka buuxaan horta Soomaali ahaan waxa naga anfacay habeertay ma jirto laakiin in aska fiirsan waa iska macquul saasoo ay tahay filimkan waa filimka action ah waliba ku soo noqon karo aktarka lagu magacaabo Barafas sababtoo ah markii uu sameeyay Baahubali labadii filim kadib asaga filmaantiisa waxay noqdeen kuwa aan kor u kicin Sahu wuxuu ahaa filim fiican oo soo xareeyay lacag 400 karoor ah laakiin markii loo fiiriyay gudaha India wuxuu ka ahaa filim fashilmay filimkii kale ku xigay Raad Shaman haba sheegin burbur taariikhi ayaa ku dhacay filimkaasi laakiin filimkan sababaha lagu buunayo waxay tahay Hindu dhan ayaa garab taagan kuwaas wadanka India u badan waliba kuwa caabudo asnaamta aad ay u xiisanayaan filimkan qaabka loo jilay qaabka loo sameeyay balse action ahaan qofkii rabo u fiirsan kara balse diin ahaan ayaga ayuu quseeyaa saasoo ay tahay filimkan waxa uu kule aktarka muslimka ee waliba caanka rugcadaaga Seef Alqaan kaasoo muslimiinta ay ku kacsan yihiin waliba asaga hataa aan ku qanacsanan filimkan qaabka uu jilay asigoo laga siiyay laadar awood weyn waliba kan ugu fiican ah hase ahaatee filimkaasi badana kama soo muuqdo lagu soo bandhigayo tiisarkiisa ama xayeysiintiisa Seef Alqaan maadaama uu aktar weyn oo waliba rugcadaada muslim ah filimkan waxa laga siiyay door awood badan kaasoo ku jilay kaablaadarnimada si kastaba ha ahaatee waxa ka awood badan doono Barafas oo isku ekeysin doono salaamada ee caabudan Hinduuga filimka markii laga taxraac Hinduuga sidii u sugayaan waxa la qiyaasay maalintii kood inuu soo xareen doono lacag lagu qiyaasay 100 karoor in ka sii badan dhanka kale haddii aan fiirino filimka lagu magacaabo Custody oo aktarka ka yahay Naga Chaitanya filimkaas oo muddooyinka ugu dambeeyay la wada sugayay ayaa haddana wuxuu ku bilowday burbur taariikhi waliba kii ugu xumaa filimkan oo lacagta lagu iibsaday ee gaaris 25 karoor ayaa ugu dambeyn soo xareeyay lacag dhan 16 karoor taasoo hoos ugu dhacay lacagtii loogu talagalay wax ka hooseeya 100% marka waxay ka dhigan tahay dadkaas inay qasaareen lacag aad u fara badan filimkaasi daradeed wuxuu noqday filim burbur ku dheehan ama sana kor aan u kicin wixii laga filayna aanan keenin hase ahaatee filimka markii aad aragtid actionkiisa qaabka uu socdo sheekadiisa intaba caadi maahan ma aqaan wixii lagu nacay filimkan maanta Jimcaha ayuu soo baxay asla caawana TV-ga Bili Media ka daawan doontaan dhanka kale haddii aan fiirino filimkii Gadaar ee soo baxay 2001 ayaa haddana lagu soo celinaya tiyaatarada Gadaar oo kamid ah filmaantii blockbuster all time ee Hindiya soo maray kuwooda ugu fiicnaa ayaa hadda markale tiyaatarka la saaraya si dilka hadda joogay oo soo xasuustaan sanadol waagiisa 2009 qaabka uu ahaan jiray sidoo filmaanta u sameyn jiray danta laga leeyahay waxay tahay maadaama sanadol 2023 uu sameeyay filimkii Gadaar 2 si loo soo xasuusiyo kaas Gadaar 2 hadaleyntiisa kor loo qaado waliba maanta oo Jimcaha ay ku beegan tahay 9 Juun ayaa tiyaatarada la saaraya filimkan qarash ayaa la geliyay si tiyaatarka loo saaro waliba asagoo HD ah hase ahaatee lagama filayo lacag far badan inuu soo xareen doono balse muhiimaddu waxay tahay hadalheynta Gadaar dab inay u soo laabato si dadka u wada sugaan Gadaar 2 kaasoo ay ka fili doonaan waxyaabaha ay ku arkay filimkan waxyaabo ka sii badan waad ku mahadsantahay daawashada barnaamijkan fadlan jalanka haddii aad ku subscribe iyo saar adigoo mahadsan